maanta waxaan joognaa waa isbitaalkii guud ee Caynaba waxa halkan la fadhiya madaxda gobolka iyo madaxda isbitaalka waxaan maanta ku wareejinayaa mishiinka kamida mishiinada wadnaha loo isticmaalo marka qofku shoog galo laga soo saaro mishiinkaas oo baahi weyn loo qabo baahidiisuna ay diilay isbitaalka wala mishiin bay haayeen mishiinna shaleeto ayaan burco ku wareejinay mishiinkii labaadna waa kana Caynaba ayaan ku wareejinaynaa waxa ku daaqay laba ruux oo muxsiniina oo nina uu dhakhtar yahay imaaraad ka shaqeeya Abdirsaaq Umar la yiraahdo nina Mareykanka joogo oo loo yaqaano Isaaq Garweyne labada muxsin ayaa labada mishiin ugu daaqay labada isbitaal ee Burco iyo Caynaba waa laba mishiin oo insha Allah aynu rajaynayno in baahidii loo qabay iyadoo markii hore dadku ay gacanta isticmaali jireen in maanta ay heleen mishiino loo bedeli kara gacantii dadka isla markaana soo saaraya halka xaaladda qofku uu marayo mar walba screenka laga arkayo waxaan maanta markaa rabaa inaan dadka labada nin muxsiniintaana ay u mahadnaqo ana wasiirka horumarinta caafimaadka madaxda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee heer gobol iyo heer isbitaalba aaniyana ku wareejiyo ay gudoomaan mucaawanada la soo gaarsiiyay isbitaalka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labada muxsin ee qalabkaas soo iibiyay kale ay heli karaan iyo wixii kale dad iyaguna wax ku biirin kara caafimaadka gobolada iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana meel mudan in la caawiyo marka iyagana waa mahadnaqaynaa inta kalena waa ku goobay kuwa hore oo badan oo iyaguna shaqooyin badan soo qabtayna way jiraan waa ku goobaabinayna ama Caynaba ka qabtaan ama Burco ka qabtaan ama oo ka qabtaan ama wadanka intiisa kale iyo Hargeysa iyo Boorama ka qabtaan dad badan oo shaqeeyay baa iyaguna jira meel ay joogaanba waxaan rabaa inaan mahadnaqa ka simo maanta si gaar ah waxaan xusayaa labadan muxsin ee qalabkan in hor yaala iyagu keenay oo ku daaqay aad baan ugu mahadnaqayaa Sidiwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Cali Nuur Xaaji Cabdi iyo agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Caynaba Dr. Mustafa Dhigay ayaa wasiirka caafimaadka uga mahadnaqay qalabkan caafimaad oo soo gaarsiiyay cusbitaalka guud ee magaalada Caynaba waxayna si weyn wasiirka wasaaradda caafimaadka uga amaaneen dadaalka ballaaran ee mar walba ugu jiro inuu garab istaago isla markaasina uu horumariyo hawlaha dhanka caafimaadka ee deegaamada gobolka Saraar waxaan halkan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka kaga wareegaynaa qalab runtii aad halkan ka arki kartaan oo muhiimadiisa leh kaas oo ah manual defibrillator ay wax badan runtii ku soo kordhin doona caafimaadkii isbitaalka Caynaba qalabkani waxa uu caawin doonaa shaqaalaha ka shaqeeya badanka emergency-ga ee la kulma xaaladaha emergency-yada ee badanaa wadnaha la tacalluqa waxaanu wax weyn ku soo kordhin doonaa mustawihii isbitaalka Caynaba marka waxaan marka ugu horeysaba u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo guud ahaanba wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii si lamida isbitaalada kaleba shaqo ballaaran ka haysa isbitaalka Caynaba oo aad iyo aad runtii markasta nolol garab istaaga wixii baahiya ee isbitaalku u baahan yahay mar walbana wixii suurtagal ah nala qabta waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa sida wasiirku sheegay ragga muxsiniinta iyaguna caawinaya dadkoodii iyo isbitaaladoodii aad iyo aad bay runtii u mahadsan yihiin waana wax ay miisaankooda aakhir ku darsadeen
annagu cisbitaal ahaan annagu awalba dadka deegaanka u adeegaynay waxaan ballan qaadaynaa qalabkaana lagu wareejiyay inaan daryeeli doono ilaalintiisa iyo maintenance-giisa inaan ka shaqeyno dadka loogu talagalayna sidii ay ahayd aan ugu shaqeyn doono haddii ilaahay ka dhigo waxaana ay runtii kor u qaadi doonta marxaladii ama mustawihii cisbitaalku taagnaa qalabkani wax weynna wuxuu kusoo kordhin doonaa qaybta kaalmada degdega ah ama emergency-ga loo yaqaano cisbitaalka Caynaba waxa aanu ku dadaali doonaa inaanu qof kasta oo emergency ka shaqeeya uu qalabkan ku shaqeyn karo maadaama isagoo ku jira shaqadii uu la kulmi karo xaaladda marka dadweynaha iyo deegaanada cisbitaalkan u adeego waxay u tahay runtii farxad weyn bay u tahay inay qalabka wadnaha ay xaaladaha degdega runtii ka shaqeynaya uu ku soo kordho wasiirka iyo wasaaradana mar labaad iyo mar saddexaadba waan mahad celinayna runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in lagu wareejiyo jiinkan waan baahi weyn loo qabnay runtii cisbitaalkuna uu wax badan kaga fursan doono runtii muxsiniinta soo bixisana waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ay ku daro cisbitaalku wasiir saad ogtahay shaqooyin fara badan buu qabtaa shaqadiisu muhiimka culays badan baa saaran aad iyo aad buu shaqadiisu imika ay maxaa la yiraahdaa u badan tahay muddadii hawlaha soo socdeen wasaaradda horumarinta caafimaadku cisbitaalka wax badan bay kor ugu qaaday runtii bishii walba waxa laga yaabaa cisbitaalka Caynaba in wax aad u badani uu sii kordhaano isbedela ama qalab wasaaraddu keenayso ha ahaato ama maxaa la yiraahdaa qalab muxsiniin ku caawinayso ha ahaato ama dhan kasta isagoo culays badan hadana saaran yahay kuris fara badan ayuu ku sii socdaa runtii si joogto ah oo step ayaan uga mahad celinaynaa wasiirka caafimaadka iyo wasaaraddiisaba runtii qaabka iyo cisbitaalka gacanta ugu hayaan oo maalin walba runtii si istaba jooga loo keeno qalab iyo alaab wax maanta wasiir aynu tabayno weyn oo maanta cisbitaalka Caynaba ka dhiman ma jiraan runtii taasuna waa farxad aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa muxsiniinta garatay inay miisaankooda aakhiro wax ku darsadaan waxaan leenahay jazakallahu khayran runtii intaas ayaan kusoo kabaynaynaa waa mahadnaq wasiir waanu kaa guddoonnay baahina waanu qabnay